kulanti wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal waa markaani wararkii warbixinada ugu xiisaha xamaasada badnaa Israac Media hadahan oo kala ka daawo jirteen waxa kamid ah qarax ka dhacay Muqdisho khasaaraha ka dhashay dhimasho iyo dhaawac weli lama shaacin dad baa la yahay gaari saddexaad oo looga shakisan yahay qaraxa ciidamada militariga oo xirra agaarka madaxtooyada Turkiga oo dib u dhigtay howlaha ka dhanka argagixisada bariga iyo Afriis ee dalka Syria hadal heenta dhismaha darbiga Mexico iyo Mareykanka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu ay beedmo wararku waa muhiim oo wixii maalin ku dhaafay ama maanta dhacay minidka taagan adigoon meel u raadin minankaaga jooga Israac Media ka daawo kaalintaada qaado oo subscribe like share warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax goordhow ka dhacay Muqdisho kaas oo khasaare xoogan ka dhashay qaraxyadii maanta ka dhacay waxaa kamid ahaa xildhibaan warsame Maxamed Xasan Joodax oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana agagaarka tiyaatarka ee qaranka qaraxii hore ka dhacay lagu arkay meedad u badan ciidamada amniga waxa kale oo wararku sheegayaan in dad lagu laayahay qaraxyadii hore ee dhaceen wili khasaaraha ka soo kordhay qaraxyadaasi lama shaacin wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in gaari saddexaad lagu shakisan yahay in uu sido waxyaabaha qarxa ayaa lagu arkay agagaarka tiyaatarka qaranka gaarigaani ayaa la sheegay in uu yaalay dhabarka dambe ee maktabada qaranka waxaana goobta xiray ciidamada militariga ee ilaalada madaxtooyada waxaana guud ahaan meesha ka baxay ciidamadii booliska iyada oo gaadiidka gurmadka loo diiday in ay galaan goobaha qaraxyada ka dhaceen ayna qaadaan dhaawacyada madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa jamcihii ku dhawaaqay in dib loo dhigay xogaa yar howlgal military oo la qorsheynayay in looga hortago argagixisada bariga iyo Afriis ee waqooyiga Suuriya kadib markii aan wada hadal la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaan go'aansaday inaan sugno muddo yar ka hor inta aanan hawsha la fulin laakiin taasi micnaheedu ma ahan in aan sugi doono waligeen Erdogan ayaa shir jiraayad uu qabtay ganacsatada Istanbul waxa uu ku sheegay in Turkiga uu sii wadi doono ka shaqeynta qorshaha ciribtirka wixii ka soo haray xayawaanada ku jira gobolkaasi si kale hadii loo dhigo bilaha soo socda waxaan ka shaqeynaynaa sidii loo baabi'in lahaa qaybaha PKK BYD iyo waayihii Daesh ee Syria ayuu yiri madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan dawladda Mareykanka waxay qayb ahaan hoos u dhigtay sabdidii khilaafka xoogan oo ku aadan madaxweyne Donald Trump ayaa dalbaday in golaha Congress-ka ay $5 bilyan oo dollar ku darsadaan darbiga xuduudda la leh Mexico kadib markii uu fashilmay in uu ku dhufto heshiis miisaaniyadii jimcihii hogaamiyaasha shirarka cad ayaa ku yaboohay in ay wada hadal la galaan dhamaadka weekend iyaga oo raadinaya heshiis ah in la joojiyo xidhitaanka ka hor fasaxa Christmaska